Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay daawada ugu fiican biyo-baxa degdega ah. Muuqaalkaas oo faahfaahsan ayaan rabaa inaan kusoo gudbiyo la socod wanaagsan. Fadlan hadduu kanaalka ku cusub tahay noo subscribe gareey, muuqaalkan haddaad ka heshaan like noo saar si aan usoo badano muuqaalo la mid ah. Mahadsanid. Jawaabta: dad badan ayaa ka sheegto biyo-baxa degdega ah marar wuxuu noqon karaa wax fudud, siiba marka qofka uu ku cusub yahay guurka. Marxaladda guurka, qofku markuu ku cusub yahay waa iska caadi in biyaha qofku si degdeg ugu arko, laakiin haddii sii socoto ama uu sii wado waxaa jira dhibaato u baahan in la daweeyo. Daawada biyo-baxa waxay u noqonaysaa maskaxda iyo nafta qofka qaabab badan ayuu dib ugu dhigi karaa biyo-baxa shahwada, waana qaabab maskaxda la xiriira. Waxaa jira waxyaalo oo qofka ugu kaalmeyn karo inuu biyaha dib u dhigo. Waxaa ka mid ah saliidda, khaasatan saliid saytuunka, dhego-yaraha. Sidoo kale waxaa jira daawo oo buufis ah oo laga helo farmashiyeyaasha oo ah kawaabiyo, oo marka lagu buufiyo xubinta taranka ninka xasaasiyadda daran ka tagsiinaysa. Waxay ka mid tahay waxyaalaha biyaha dib u dhiga. Daawadaasi waxaa lagu magacaabaa Silokin. Silokinta waa taasito baakadaas waaye, dhaladaas yara iyadoo noocaasna waa helaa, qaabkaas ay u taalaa, farmashiyeyaashana laga helaa. Guud ahaan waxaa loogu talagalay inuu xanuunka ka baabi'iyo qofka. Marka waxaa loo adeegsadaa biyo-baxa degdega ah in dib u dhigo. Takhaatiirtu waxay dhahaan wax dhib ah uma keenayo qofka. Muuqaalkeena halkaas ayuu inoo ogyahay. Fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkan haddaad ka heshaan like noo saar. Waxaan ballan video. Assalaamu calaykum.